السلام عليكم ورحمة وسمسم حسن وإذن لك سو دوادا تاريخ شيخ إسحاق قيبتي أفراد dhimashadii maxamed xuseen oo awow u ahaa sheekh Isxaaq waxay abuurtay in qoyskii wada socday ee Madiina dhawaan uu soo wada degay ay u kala haajiraan Yaman, Masar iyo buuraleyda Xijaaz. barigii Yaman uu sheekhu degay waxa taasi ka sii daran in walaalihii oo ay isku bahda ahaayeen ay u soo wada haajireen Yaman, kana koobnaa Axmed, Maxamed, xamse iyo tafiirtii ay sii dhaleen aanay duruufaha adag u saamixin inay goob kaliya wada degaan ama ay ku wada noolaadaan, taasoo ay dantu ku kaliftay in qoys walba uu dhinac u dhaqaaqo. qoyskii Axmed oo uu sheekh Isxaaq ka mid ahaa waxay u haajireen dhinaca bariga Yaman, waxaanay degeen buuraleyda Yaman ee loo yaqaano al-Yamaniyatayn al-Culya, halkaasi oo uu Axmed ka bilaabay duruus uu dadka diinta ku barayo. sheekh Isxaaq waxay walaalo ahaayeen 4 wiil oo kala ahaa Naasir, Daahir, Maxamed iyo Sufyaan, waxayna qoraalada kala duwan inoo cadeynayaan in xilligaasi ay u soo guureen dalka Yaman ay da'da sheekh Isxaaq ahayd 17 jir. dalkaasi cusub ee Yaman ee ay soo degeen qoyskii uu ka tirsanaa sheekh Isxaaq wuxuu ahaa mid ay dad badan oo aalabeydka Xasan iyo Xuseen ku abtirsada u soo haajireen xilliyadii cadaadiska iyo xasuuqa uu ku hayay maamulkii Cabaasiyiintu, waxaana muuqata in muddo yar kadib uu qoyskani si fiican ula qabsaday qaab nololeedkii dalka Yaman, dalkaasoo lagaga hadlayay afka Carabiga, taasina ay u suurto gelisay inay si dhib yar ula qabsadaan wadanka Yaman. Axmed Maxamed Xuseen oo ahaa sheekh Isxaaq aabihii wuxuu ahaa sheekh diinta Islaamka si qoto dheer u yaqaana, wuxuuna markiiba ka bilaabay deegaanka cusub ee uu qoyskiisu soo degay duruus kala duwan oo diinta Islaamka ah. taasina waxay u suurto gelisay inuu xaaskiisa iyo 4 wiilba kafaalo qaato ama uu ku filnaado, waxaa intaasi dheer inuu caruurtiisa ku soo barbaariyay barashada diinta Islaamka, una sii diyaariyay sidii ay macallimiin dhigta duruusta kala duwan ee diinta Islaamka u noqon lahaayeen mustaqbalka. waa qaybtaas intaasay ku dhantay qaybtii afraad, waa inoo qaybta xigta. nabaday.